السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada akhyaarta sharafta badan YouTube channelka Xamsooni Heena. Maanta waxaa idin soo diyaariyay ama idin wadaa sidaan bocorka u karsado inaan idin tuso. Maasha Allah asxaabe saa u jeedaan bocorkay waan soo dhaqay, waan soo nadiifiyay. Maasha Allah waan jaraa, hadda waxaan ka jaraa qaybta hore iyo qaybta dambe. Kadibna waxaan sameynaa dhexda ayaan ka dhufanaa. Maasha Allah asxaabta ila daawada sidaan u wado hawsha. Maasha Allah haddana kadibna waxaan sameynaa markaan saan u sii jarjaro waxaan ka saaraa ama ka dhicinaa xuubka kore ama maqaarka sare. Waan hoolaa. Maasha Allah waa u jeedaan saan u hoolayo. Maasha Allah mididaan ku hoolayaa. Ninkii heestana qalabka hadda cusub oo yimid oo lagu hoolan wuu ku hooli karaa, laakiin aniga mididaan ayaan ku hoolayaa si dadka aan haysanin qalabka ay u ogaadaan in midida lagu hooli karo. Waana wayba ogyihiin midida ebelba lagu hooli jiray. Maasha Allah waxaa la rabaa si cad oo nadiif ah inaa u hoosho. Maasha Allah asxaabe waxaa la rabaa hal xuub inuusan ku harin. Saan u wado waa u jeedaan kaali arag. Hadda sambal ahaan ayaa idinku tusinayaa. Kadib markaan soo wada dhameeyo aan soo wada fiiqo waan isku soo laabanaynaa insha Allah, waana ila arki doontaan. Maasha Allah asxaabe waa kuwaan ayagoo dhan waa soo wada hoolay ama maqaarka waan ka soo dhiciyay. Kadib haddana waxaan rabaa inaan ku sameeyo inaan jarjaro. Habkaan u jarayana ila arka. Waa kana marka hore waxaan sameeyay 2 gobol aan ka dhigay. Haddana gobolkii ayaan dhexda ka sii dhuftay. Marba hab ayaan u jarayaa. Hadda waxaan sameynaa habkaan hadduu ku fudud yahay. Habkaan marka hore saan u jarjar. Kadibna lafaha oo idil dhexda ka saar. Ama haddii kale waxaa sameysaa haddii habkaan uusan ku fududeynin gobolka kale ayaan ku tusinaa saa u jaray sidaasina. Maqaarka kore marka hore inaad soo qabatid ayaa xuubka micnaa lafaha ku dhegan oo idil hal marka wada qaadi. Kadib ayaa jarjare sida hadda aan sameynayo arag. Hadduu kula fudud yahay sidaana waa sameyn kartaa. Waa kan marka hore waxaan ka bixiyay lafihii oo idil ayaan ka bixiyay. Waa haddaad lafaha jeceshahayna waa ku reeban kartaa, laakiin ani lafaha ma jeceli, waa iska saaraa. Maasha Allah waa kan waxaan soo reebtay qaybtaasoo gadaal oo idil. Qaybtii ayaa haddana waa nidaamkan ayaan u jarjaraa. Lamada midkii kuu fudud adiga qaado, laakiin aniga labada dhinacba waa iska mid. Maasha Allah asxaabe si isla wada mid ayaan u wada jaraa si ay hal mar u wada bislaadaan aysan ceeriin iyo waxaysan kala noqonin. Marka asxaabe waxaan jeclahay sidaan inaan u sameysto oo yaryar. Marka aad haddaa jeceshahay waaweyn waa ka dhigan kartaa. Aniga hadda yaryarkaan aan jeclahay sidaana ku sameysana sidaanan ku soo dhameynaa. Maasha Allah asxaabe ila daawada sidaan hawsha u sii wado. Maasha Allah asxaabe bocorku caafimaadku u roon yahay, aad ayuu u fiican siiba indhaha ayuu aad ugu fiican yahay. Marka ma ahan in bisha Ramadaan oo keliya la isticmaalo bocorkan. Mar walba waxaa fiican inaad isticmaasho ama cunto. Waayo badalka micnaa waa wax wadankaadii aad ka helaysid aadan dhib badan aadan u mareynin.
marka waxaa wanaagsan inaad mar walba aad isticmaasho. Indhaha ayuu daawo u yahay, maskaxda ayuu daawo u yahay, marka koley indhaha iyo maskaxda way isla socdaan. marka asxaabey markasta isticmaal. maasha allah asxaabey waa arki doontaa caafimaadkiisa waana u riyaaqi doontaa insha allah. asxaabey ramadaan kariim maasha allah. asxaabey maanta ayaan samaystay, waxaana go'aansaday inaan idin tuso habka aan u sameynayo. insha allah waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inaysan aqoonin habka loo sameeyo, marka waa idinla wadaagayaa maanta sidaan u sameysanayo bocorka. ma ujeedaan asxaabey saan u yaryareynayo oo yaryar u dhigayo, waa sidaan aan jeclahay. asxaabey bocorkan waan soo jarjaraa, waan soo wada dhameynaa, kadib waan isku soo laabaneynaa insha allah. ramadaan kariim asxaabey waa kana waa soo dhameeyey, saxankaanaan ku soo shubay maasha allah. haddana waxaan sameynaa waa dhaqaa, waa iska raacsiinaa maasha allah. biyoon ku soo shubay kadib waa iska nadiifinaa sidiisa la dabka kuma saarayay insha allah asxaabey. kadibna waxaan ku shubayaa digsiga, kadib waxaa u dhiibayaa alaabihiisa insha allah. waqtina wuu i hayaa, waxaan ku sameynayaa si dhaqsi ah. hadda waxaan ku shubay galaas sokor ah, waxaan ku daray haddana haaf kale, sidaas waxaan ugu shubay galaas iyo haaf oo sokor ah, waayo sokortu aad ayuu ugu fiican tahay, sokor badan ayuu ku fiican yahay. kadibna waxaan ku daray saliid, garwac weyn haafkiisa ayaan ku shubay, kadibna heel waa kala tuur waayo waqti ayaa igu socdo, marka waa isku geena, wax gadaal loo dhigayo ma lahan. haddana waxaan ku daray subag aan ku carfinayo insha allah, kadib wuxuu kusoo baxaya mid aad u caraf badan insha allah oo laga wada helayo. haddana waxaan ku daray galaas biyo ah oo inuu kusoo badbado aan ugu talgalay. asxaabey waa kana siduu kusoo baxay sidaan u quruxda badan insha allah.